siyaasado kale oo xamar ka jira oo aan dawladda federaalka ah isku khilaafsan waxyaabaha laga shaqeynayaan waxyaabaha raaliga looga yaho ay uga aamusan tahay dawladda federaalka waxaan inay sharci darro yihiin iyadoo ogsoonna ayaa wax kale maahan waxa weeye xaaladda Soomaaliya guud ahaan la soo wajahday ee siyaasadda arrimaha dibadda marka la yiraahdo waa mid aad u culus annagu dal baan nahay waxaan leenahay xiriir soo jireen waxaan la leenahay waa Sacuudiga waxaan la leenahay waa Imaaraadka waxaan la leenahay waa Masar laakiin in wadan hadda saakay aynaan xiriirkeenuba uusan aad u xooganayn aadna u yar wadamadii dalkan dhisaayid garab taagnaana aanan wax u ahaa kamid ahayn in saakay la yiraahdo dhaxdhaxadan ka noqonay aniga waxaan u arkay inay qalad sababtuna wax kale ma ahanay waxa weeye Sacuudi Arabia Soomaalida ku nool ayaa shacabka u dhashay qadar ka badan Imaaraadka Carabta hantidii dalkeena iyo ummadeena iyo shacabkeena oo dhan Masar waa ogtihiin xiriirka soo jireenka oo anaga in marka siyaasad miisaaman laga shaqeeyo lama sameeynin go'aan la fudud ayaa la galay go'aanada haddaan marka aniga anoo madaxweyne Hirshabeelle ah madaxweyne mas'uuliyiin mas'uul Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna tala ku leh haddaan u arkay inay arrin lagu qaldan yahay madaxweyne waa naga hor yimid marka aan cidii ku kacayso oo idil aan taageerno ayadana dastuurka la soo maro cidii la rabo hal taageere 66 cod aniga irideen 66 cod hal keeno madaxweynaha kalsoonida ay u diideen maalintii Isniinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan khilaaf kala dhaxeeya dawladda federaalka madaxdeeda taasina ay keentay in xilka uu ku waayo xildhibaanada kalsoonida u diidana ay dhinacaas dawladda federaalka taageero ka helayeen warar aanu helnay waxay sheegayaan in Cali Cosoble uu hadda ku waayay xilkii uu ka hayay baarlamaanka inkastoo uu weli uu diidan yahay in xilkaasi si sharci ah aan loo marin qaabka looga qaaday haddana dawladda federaalka ayuu ku eedeeyay in arrintan arbushaada ah ee khilaafka siyaasadeed ka dhex abuuray Hirshabeelle ay u keentay ila muhiima oo aanu helno waxay sheegayaan in madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu hadda wado qorshe ku aadan sidii hoggaan cusub uu ugu sameyn lahaa maamulka Hirshabeelle waxaana midkood Cabdullaahi Goodax Barre ama Ibraahim Xabeeb Nuur la leeyahay way iman doonaan oo ay beel ahaan ka soo wada jeedaan gobolka Hiiraan labadan shakhsi hadda Cabdullaahi Goodax Barre xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waxaana uu siyaasad ahaan u dhow yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ibraahim Xabeeb Nuur xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ayuu isagana yahay waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in mar kale ay soo cusboonaan karto siyaasad ahaan Maxamed Cabdi Awaare oo mar la tartamay Cali Cabdullaahi Cosoble markii xildhibaanada ay codka u qaadayeen doorashadii dhacday 10 bil ka hor ee Hirshabeelle hogaamiyaha uu ku noqday Cosoble dadka ka soo jeeda deegaan ahaan gobolka Hiiraan ayaa mar kale baal ahaan siyaasadda ay u furantay waxaana xitaa arrintan ay saameyn gelin doontaa oona la hoostigi doonaa ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ah ugaaska beeraha ka soo jeeda gobolka Hiiraan mid kamida haddaba Cali Cosoble ayaa kalsooni ahaan waxa uu weli qaba in uu yahay madaxweynaha Hirshabeelle isagoo shalay diiday xilka qaadista xildhibaanada ay ku sameeyeen maalin ka hor madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ayaa isaga iyo waliba wasiiro iyo qaar kamid ah xildhibaanada taageerada u haya ay saacadii la soo dhaafay kulamo ku yeelanayeen waxaana taasi ay si laba jibaartay khilaafka kala dhaxeeya xildhibaanada iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee la safan iyaguna Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo soo shacab bixisay khilaafka Cali Cosoble kala dhaxeeya laba Cali iyo waliba Cusmaan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa la leeyahay cirka ayuu isku sii shareeraya taasi oo ku aadan in xaaladdu ay meel sare gaari karto dawladda federaalkana ay go'aan degdeg ah ka qaadan doonto sida loo maleynayo. Somali Fan TV subscribe